وليد ضاها جنة لعاشقين وجنة له بيوم الفزع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عربنا عاو إن شاء الله تعالى إن همبليو يتهنيد barakaysan aan u soo jeedino dhammaan muslimiinta dunida meel walba ay joogaan iyo dhammaan caalamka bulshada meel walba ay kala joogaan. sifo khaasana waxaan rabnaa inaan farxadda iyo maaragta qiimaha weyn oo nabiga sallallahu alayhi wasallam isku farax gelino isku hambaliyayno. waxaa sharaf inoo wada ah inaan sifo khaas ah farxadda ula qaybsano ahbaabtanada baytul ashaacira oo TV-goodii oo hawshan qabanayo mas'uulkii u sareeyo oo sheekhanaga Sheekh Axmed Ilaahay xafido oo garabkayga fadhiyo. ahbaabta page-ka ku xiran waxaan sifo khaas u la wadaagaynaa farxadda dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. dhammaan caalamka waxaan uga hambaliyaynaynaa dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. sababtu waxa ay tahay nabigu wuxuu ahaa nabi u dhashay caalamka oo idil nabi u dhashay ma uu ahayn nabi u dhashay Quraysh oo kaliya nabi Carab qusay nabi dad gaar ah qusay wuxuu ahaa nabi ummadda oo dhan loo soo diray. haddana nabi wuxuu ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam naxariis xitaa gaaladu naxariis u ah nabi sallallahu alayhi wasallam. waa sababta caalamka intii wax baratay ama wax taqaanaahay waxa ay qiran tahay waxa ay tahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu ahaa fursad caalamka oo dhan soo martay oo neeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam shakhsiya caam ah oo dunida oo dhan ka dhaxayda inuu nabigu yahay sallallahu alayhi wasallam. sababtaasi waa sababta caalamku maantay kaartooyinkii nabigu uu ku dhaqmayay habkii uu bulshada isugu hayay naxariistii oo keenay cadaaladii bulshada uu nagu soo kordhiyay dhammaan xeerarka hadda qaramada midoobay ay ku taagan yihiin nabigii sallallahu alayhi wasallam xeerarka saxda ah oo bani aadamnimada dhowradeeda ah nabigii soo gudbiyay way nabiga sallallahu alayhi wasallam. maadaama nabiga uu nabaray in gabdhaha xuquuqdooda la ilaaliyo, maadaama nabiga uu nabaray gaal iyo islaam dadku inay wada noolaadaan oo ay dadku wada jir u wada noolaadaan, waxa caalamku u aqoonsaday oo aqoon-yahanadoodu u garteen inuu yahay nabigii loo soo saaray ummadda oo dhan inuu yahay. mustashriqiin badan ayaa marqaati ka furay haddii nabigu maanta uu joogi lahay caalamku maanta inuu sidaan ka nabadgeliyo badnaa lahay. mar labaad jazaakumullahu khayr. waxaan isku farax gelinaynaa dhalashada nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. muslimiinta caalamka oo dhan hambariyo iyo tahniyad ayaanu u diraynaa haddii Ilaahay idmo. mar labaadna waxaan leenahay shahru rabiici mawsimu laxibati wallahi wa waciiduna almusharraci tudaha jannatu li'ashiqi wajannatu lahu biyawmil faza وليد ضاها جنة لعاشقين وجنة له بيوم الفزع. وليد ضاها جنة لعاشقين وجنة له بيوم الفزع. شهر ربيع موسم الأحبة والله وهو عيدنا المشرع. وليد ضاها جنة لعاشقين وجنة له بيوم الفزع. dhammaan farxadaasaan wada qaybsanaynaa insha Allah.